بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba naga daawanaysa waxaana aanu rajeynayaa Ramadaan wanaagsan iyo Ciid wanaagsan muddaan soo soomanayn maanta waa maalintii 24aad Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soonkeena aqbalo salaadeena aqbalo Ilaahay waxaan ka baryayaa in dhibaatooyinka Soomaalida haysta Ilaahay soo afjaro dembigeena iyo kii waalidiinteena Ilaahay dhaafo ayaan Ilaahay ka baryayaa ciid wanaagsan maanta bishu waa 9 waa way bishii 6aad waxay ahayd inaan idinku soo noqdo bisha 1deedii ama tii hore 31keedii sidaad nooga barateen oo aan idinka warrano wixii noo qabsoomay dhinaca maaliyadda iyo maamulka iyo maareynta maaliyadda bisha 31 ahayd ee bishii 5aad ahayd waxaan ka cudur daaranayaa in waqtigu dib nooga yar dhacay duruufo jiray awgeed iyo shaqada nagu badnay waa idinka raali gelinaya waxa kale intaan warkayga bilaabin aan doonayaa in aan xuso anigoo ka tiiraayaysan dhibaatooyinka Soomaalida ku dhacay ee fatahaadaha iyo dhibaatooyinka gaadhay webiyada ku soo fatahay iyo duufaanada ka dhacay gobollada waqooyi qaar ka mid ah aad iyo aad baan uga tiiraanyeysanahay ugana xumahay waxaan Ilaahay ka rajeynayaa in Ilaahay wax wanaagsan inoogu bedelo waxa kale oo aanu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogta inay dadka Soomaaliyeed dhibaatoobay soo caawiyaan annaguna yaraysan mayno adduunyadana waanu sheegnay waana ku tala jiraa in dibadda wax ka yimaadaan haddii la yiraahdo aad baan uga xunahay dhibaatooyin waaweyn ayaa ina gaadhay waxaan ka warramayaa markaa bishiina dhaaftay bishii 5aad ahayd wixii qabsoomay waxaad ogtiin waxa weeye in aan cilaaqaad la leenahay oo aan ahdi kala seexanay adduunyada oo laba arrimooda mid waxa weeye inay naga caawiyaan maamul wanaagga maaliyadeed siyaalo kale inay noo caawiyaan iyo dib u dhiska dalka naga caawiyaan inaguna aan waxyaalo loo baahan yahay qabanno marka labadeena midowga mas'uuliyaddaas inay saaran tahay oo aan kala seexanay baa idinka dhaadhacsan aad ogtihiin bil walbana ay tahay halkaan taa marayno inaan idinka warramo arrinta lagu magacaabo afka Ingiriisiga SMP ee ay IMF ku leedahay ama hay'adda adduunka ee lacagtu waxa weeyaan hay'adda waa banka central bank ee wadannadu leeyihiin adduunyada dhan wadanadeed way istaan dhowr jeer u sheegay waxa iyagu yiraahdaan baana dadku dhageystaan waxa iyagu yiraahdaan ayay dadku dhageystaan waxa yiraahdaan iyo reportka qoraan baa la qiimeeyaa sidaa daraadeed marka aad doonayso dalku inuu soo noolaado dib u soo baxo waa inaad iyagu aad ka dhaadhicisaa waxa doonaysaa inaad qabato waa inaad wixii loo baahnaa qabataa hadaad qaban weydo waa laga goosanaya si aad ogtiina adduunyadu waxay hore ugu martaa dal waliba waa laba arrimood weyn wixii dalkaaga ka soo baxay oo adigu habaysatay oo isku keenatay oo adigu habaysay iyo wax dibadda lagaga caawiyo markaad adigu ishabaysaba dibadda dhaqaalaheeduna uu badanayaa oo kalsooni baad iyo dadka gelinaysa marka arintaa horta annaga arintaa jidka aan ku taaganahay waxa weeyaan jidka ugu manaafacaadka badan ya ahmiyadda weyn aan saarayna weeyaan annagoo madaxnoo yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxaad ogeydeen SMP arintaa la yiraahdo tii labaad inaan soo dhamaystiray ayaan idinka warray maalintii hore dhamaystirkeedii gunaanadkeedii bisha May 7 ilaa 15keedii ayaa Nairobi joognay 8 maalmood baan halka joognay annagoo wasaaradda inteeda badan dadka qaybaha ka madaxda iyo dadka SMP da lafteeda ka madaxa iyo kuwa budget ka madaxa iyo kuwa accounts ka madaxa ay intaasiba nala joogaan ayaguna ay ka yimaadeen Washington DC ayaan wada joognay Nairobi waxaan isla qaadaa dhignay markaa item aanu eegnay waxyaalihii la nooga baahnaa inaan samayno
waxyaalahaasoo halmuceedkeedu yahay maamul wanaag maaliyadeed halmuceedku weeyaan biyuhu halkaasay iskugu imanayaan wixii ku soo galay ma haysa halkay mareen wixii ku soo galay halkii toosneed ma mareen ya oo aan jexlahayn ayaa magaranaysa halmuceedkeedu yahay dhowr iyo 10 qodob ayay haayeen oo cashuurta ururinteeda maamulka kale ee maaliyadeed shaqaalaha waxsiintooda account furidooda sharikadaha la macaamilkooda la falgalkooda waxaasoo dhan ay ku jiraan ayaa ka mid ahaa dee dad meel isugu yimi oo 8 maalmood 8 aroornimo ilaa 8 habeenimo wuxuu wadaa waa shaqo badan weeyaan inta badan caadatan shirarku waa weeye waa maalin iyo 2 maalmood weeye laakiin kani technical meeting iyo siyaasad isku jira ayuu ahaayo 8 maalmood buu qaatay 8 maalmood markaan dhamaynay 2 arrimood baa noo suura galay marka labada noo suura galay waxa weeye SMP2 wixii loo jeedo laba inaan soo gunaanadno soo gabagabayno warqadina ka soo baxdo oranaysa Soomaalidu way ka soo baxeen ya gabagabay taas ku dhamaatay waxa kaloo taa ku xigo 4 maalmood ee dambe ahaa SMBdii saddexaad wadadii dariiqii saddexaad oo aan filayno inuu yahay kii ugu dambeeyay oo dariiq dambe aan jirayn macnaheedu yahay markaan taa dhamayno haddaan ku guuleysano inaan meeshaan doonayna gaadhno adduunka ka mid noqono ayaa filaynaa dadaal fara badan loo baahan yahay la fulfilay ayaa maalin walba waxaan ka wada hadlaynay wixii ka mid noqon lahaa shuruudaha arrimahaas oo kale wixii ka mid noqon lahaa waxa la doonayay inaan qabanno in dalkan u qabanno iyo habka la doonayay inaan u qabanno iyo haddii wax naga dhiman yihiin sidii la nooga caawin lahaa waxaa naga dhiman ayaan ka wada hadlaynay wixii aan isnidhi waa qaban karaysaa ilaan dadkan ka mid nahay waa soo aqbalay ayagona way nagu raaceen tii koobaad labaad markaan dhammaynay ee dariiqii kale ku dhacnay ee la isla gartay sidii markii hore aan idiin sheegay waxaa la yidhahdaba Soomaalida ha laga dabciyo ha laga qaleeyo ha laga dabciyo inta ay wadaan tan waa in lacag loo soo furfuro waxaan idinka dhaadhicinayaa waxa weeye cashuur deymaha laynagu leeyahay daraadeed iyo maamulkeena lacageed iyo maamulkeena kale halka uu marayo aad u hooseysa waxyaalo badan ba inagaga maqan waxay nagaga maqan lacaga fara badan oo adduunyadu ururisay oo dalalka siinaas oo kale la siiyo yaa naga maqan sida kaliya taa ku gaari karnaa waxa weeye inagoo wadada ku dhacna ya oo sida adduunku isku maamulaan ayaa magaranaysa ayaa naga dhiman marka waxa la yidhi waxa la soo siiyey 19 shuruudood ayaa la soo siiyey 19 ka hadda dhamaysana waxa dhacaya ayaan idin sheegaya laakiin waxa taa ka horeysa 9kii waan aqbalay item baan isku xabad baan isku taagnay ya waan qaadaa dhignay waan isla fahamnay annaga dhinacayaga iyaga dhinacoodii wax baan isla garanay laakiin shaqada qabashadeedu waxay u baahan yihiin taageero tii hore ka xoog badan u baahan yihiin waxa kale u baahan yihiin lacagaha hadhow la nasiin doono ee lacagaha deeqda in la noo sii furfuro ayay u baahan yihiin maalinta horena waan idin magacaabay maanta waxaa idiin sheegayaa waxyaalaha la furfuray ee already la furfuray ee aan normally ahayn in laynala sugo imika maanta oo kale haddaan ka soo wada bixi weyne wixii lanoogu talagalay wax laynoo furi lahaa ma jirto ya qof consultant laynasiiye maahane la inooma furfureen lacag waxa laynoo furay waxa weeye qolada World Bank 140 milyan oo dollar ayay fureen oo qaybi tahay qaybaha caadatan la siiyo dalalku marka ay si fiican soo hana qaadaan qayba ilaa 60 ilaa 80 baa inta kalena meelo kale la iska keenay wadanada kale la keenay yani waxa weeyaan maamul wanaaga aan muujinay iyo waxyaalaha la inooga baahnaayeen aqbalay ee aan ka soo baxnay daraadeed World Bank banka adduunyadu 140 milyan oo dollar ayuu waan siinaya arinteedina waa lagu jiraa waana dhamaystirmaysaa waxa aan doonayaa inaan idin sheego warqadaas oo dhammaystiran oo xaggeena ka dhammaystiran iyagana u dhammaystiran waxa lagu tala jiraa bisha July ee soo socota bisha 7 oo bisha soo socota 31keeda
haddaan wax isbedelin in boardkooda la geeyo qolooyinkooda maamulka la geeyo lasoo fasaxo dabeetana dalka ay yarin yar soo gasho taasi waa taa European Unionka shirarka aan ku jiray iyagana waan la shiray ee Nairobi ayaguna qayb bay ka yihiin shaqada socotay IMF wado qayb bay ka yihiin iyaguna 100 milyan ayay ku ballan qaadeen halkaa waan ku soo shiray halkana shalay ma haduraad baan ku shiray waxaan isla garanay 100 shalay bay ahayd in fact waxay khamiistii bay ahayd maalintii khamiis shalay jimcadeed khamiistii bay ahayd waxaan isla lafa guraynaa lacagtaas sidii loo isticmaali lahaa baan isla lafa guraynaa oo iyaduna shuruudaysan oo de waxaan shuruud lahayn banka haddaad tagto maanta oo tirada lacag baan ka amahanaya hataa haddaad tahay Donald Trump bilyaneer haddaad tahay shuruudaha jira teerino bay kasii hooseysaa shuruuduhu way kasii adkaanayaan lacagtuna deyn maaha waa lacag deeqaho shuruudihii way sii adkaanayaan marka shuruuduhu mushkilad naguma hayaana waxaan qaban karnay waxayna qaban karin haddayna siiyeen waynu garanay iyaguna way garanayaan iyaguna marka intaas ayayna siiyeen African Development Bank maalin dhaweyd baan tagnay ayaguna waxay soo wadaan wali fikirkiis lama aanan garan wax weyn ma aha laakiin wax tara ayuunba iyaguna soo wadaan waxa weeye waa jaa'izad haddaan afka carabiga ku sheego oo layna siinayo sidii edebtii wanaagsan wax soo wadnay habkii wanaagsanaa ee dalkeena soo maamulay ayaga garanaya inuu wanaagsanayeen kale ya inagu propaganda kasta aan samayno laakiin iyagu IMF ku waxay leeyihiin Soomaaliya ya way isbedeshay bay leeyihiin way isbedeshay waana la aamini karaya markay ay yiraahdaan adduunka lacag ku soo furaya Soomaaliya garan marka taasi waa taa aad baan ugu faraxsanahay in la inagu aamino wax ya in wax la nagu aamino aad baan ugu faraxsanahay waxa kale oo jaa'izada kamida in la yiraahdo lacagtii Soomaalida hala soo saaro shilin Soomaaliga hala soo saaro ilaa waa arrin shaqo badan SNPD labaad bay ku jirtay waxay qabta waa qabanay ma qabateen waa la isku taagay IMF kuna niman jahanjaxaya ma aha waxay iyagana ay qoondeeyeen waxay isla garteen isku raaceen waxay soo saareen inay Soomaalida lacagta waa loo birin gareynaya marka lacagta la birin gareynayo hadhow baan idinka warrami doonaa waa laga yaabaa lacag lagu birin gareeyo yani printing-kii baa lacag ku fadhiyo 40 milyan horena inaan u sheegay baan u maleynayaa 40 milyan raadcadiisii ayaa waxa ku jirta IMF inaguna waa kula jiraan dawladda badan oo ballan qaadayna waa jiraan in lacagta ay naga bixiyaan taasa laga shaqeynaya maalinta taasi dhacdo kambaniya marka de waa la xayeysiin adduunyada la weydiinay cidii doonaysa Soomaaliya lacagta inay print gareyso ya already kambaniya soo diray baa jiro annaga print garanayna sida ay u ekaan doonto qaarkood waabay soo direen waa kuwan ya saayay oo kaato ya magarat saasay wakaan ya saasay wakaan qaarkood weey haddaan taa qaadano ya taa qaadano saasay wakaan taa qaadano saasay wakaan ya haddaan qaadano saasay wakaan ya marka eeg waxyaalaha waxa weeyaan marka kambaniyadu waxaasoo kale soo dirayaan iyo koska iyaga intay ku koskareynaysa waxay ku baxayeen soo dirayaan waxa weeyaan inaan aad ugu faraxsanaano marka talaabooyinka la qaaday lacagteena aan weyne iyo baasaboorkeena dhulka galay iyo waxaasoo dhani waxa weeyaan dawladnimadeennii baa meel kaga dhacday sovereignty-geennii baan waay gaadhnay marka taasina iyaduna waxay ahayd mid aad iyo aad u fiican ayay ahayd waxa kaloo jira dawlado kale ama hay'ado kale oo dawliya bilateral kuwa la yiraahdo oo iyaguna ballan qaaday World Bank iyo IMF iyo kuwa ku xiga hay'adda USAID baa kamida DFID baa kamida oo UK dawladda Norway oo maalin dhaw halkan la fadhiday ayaa kamida oo iyaguna aad iyo aad ugu heelan ya inay Soomaalida caawiyaan iyagoo Soomaalidu ka soo baxay bay leeyihiin wixii looga baahnaa waxa kaloo jira oo iyaduna abaalgudka kamida abaalgudka shaqadaan soo qabanay in mashruuca la yiraahdo search ama isku tasho aanu bixinay maga isku tasho in isagana 13 milyan laga qoondeeyay oo iyaguna sanadkan ay iman doonaan haddii la yiraahdo dhawaan ay iman doonaan warqadan saxiixa uma ka dhiman warqadana maanta ama berri haddii la yiraahdo ayaa saxiixayna now waxa soo dhan SMP2
inaan qabanno way ku xidhan tahay oo freega inaan qabanno markaad waxa qabata waxaas lagu sii deynaya maalan imika lacagaha aan soo sheegay oo dhan ama EU ha noqoto ama African Bank ha noqoto ama World Bank ha noqoto oo lacagta ugu badan keenaya waxay ku xidhan yihiin wixii aan imika IMF ku soo heshiinay ya la doonay inaan qabanno sidaan u qabanno ay ku xidhan yihiin haddaan ka dhacno qaban weyn hadii dhibaato noqonaysaayo lacagtii waa la joojinayaa EU-dana waa saas oo kale marka shuruudahaasi waxa weeye qolo waliba shuruudaheeda ayay leedahay laakiin waxaan isku daynay inay isku dhex jiraan oo ay horta balqolada lacagtana siinaysa ay eegto IMF-ka haday wax ku darayaan mid laba ku daraan ama iyagaba ku qancaan ya ayaanu ku heshiinay waxa weeyaan ilaa dhowr iyo 40 condition ama shuruudood ayaa ku xidhan shuruudaha marka hadii ay baydmaana waxaan isku wadnaa inaan ka soo baxno sida adduunyada kale uga soo baxayso inaan ka soo baxno ayaan isku wadnaa now waxa kale oo aan idin ka warramayaa marka waxyaalaha shuruudaha ugu adag ugu waaweyn waxa weeyaan inaan dakhliga wadankeena dhexdiisa ka soo bax kordhino wax kale oo dhanba soo wareeg adduunyada inaad tiraahdo lacagteeda anigu ma bixinayo adigu lacagtaada ay sii ma soconayso dhaqaalaheena la ogyahay wadankeena la ogyahay khayraadkiisa la ogyahay aniga tayado ay taale cashuurta dadka ka qaaday bariga si macquul ma haba leeyahay macquul ma waxaan soo ururinay wax la leeyahay intan ka badan xisaab baa la hayaa dadka shaqeeya la hayaa baa mushtariga la hayaa satellite-ka wax walba hayaa telecommunication-ka la hayaa ya marka idinkoo waxa soo dhalacay dadka dibadda ka soo xawila la hayaa waxa lagu oran iyadoo waxa soo lacag dalkiina yaalaan inaad dadka cashuurtii xaq lagu lahaa ka qaadi weydaan oo anaga tiraa cashuurta ka ayaga nasiya ma xaq baa lagu oran beelo xaq ma aha lagu oran marka laakiin dadkii oo aan cashuur bixin intaas oo sano oo waqti u baahan in waqti la siiyo oo dadka la fahamsiiyo oo anaga laftayada ay nagu kalsoonaan dadka iyaga nagu kalsoonaadaan oo aanay u malaynayaan lacagta iska qaadanayno ya inaan iyaga iska iibina waqti qaadanaysa baan ku nidhi inaan iyaga iska iibino oo ayna fahmaan oo na darsaan oo nagu kalsoonaadaan oo na aaminaan ayaa iyada lafteeda waqti qaadanaysa ayaan ku nidhi waan isla qaadaa dhignay meel baan isla gaadhnay marka way nala garteen laakiin waa inaan step by step ya talaabo inaan wax qaadnay weeyaan ayaan isla garanay now waxyaalaha loo baahan yahay inaan sameeyno bilaha foodayna ku soo haya imikana aan bilownay wax walba waxa la oranayaa talaabada qaad waqtigaas sanad qaadaysa waqtigii baa la isla qaadaa dhiga ma qaaban karnaa gooni la isku bixi wala isku soo noqon waqti jidaysan baa la sameeyay maalinta dheedkaasi yimaada haddaad qaban weydo ma aha sidii imtixaanadii marka laga qaaday A iyo B iyo C iyo waxay maaha ama waa zero ama waa full weeyaan ya ama waad qabatay ma maad qaban weey haddaad qaban weydo waad ka dhacday weeyaan ya ilaa wixii la isku ogaabaad qaban weyday anaga waa ku caawinayna way laakiin da waxa qaban karaysaa qabo heblaaya qabato idinku maxay u qaban lahayd de waa serious badan ahayn wala saasalanay marka waxyaalaha loo baahan yahay la qabto waxa weeye one lacagaha dawladdu leedahay Soomaaliyeed horta waxa la wixii khadamaada ee dawladdu bixiso lacagta laga soo ururiyo dawladda Soomaaliyeed baa leh dalka Soomaaliyeed baa leh waa inay meel ku soo dhacaan meel la isla wada ogyahay waa inay ku soo dhacaan hadhowna budgetka la mariya oo wax outside the budget aanu jirin marka waxa lagu leeyahay hay'adaha Soomaaliyeed ee lacagaha ururiya ee service-ka bixinaya dadka service-ka qaadanaya lacagta bixiyaan waa inay account-ka Central Bank ee wasaaradda maaliyadda ku soo dhaco oo la isla wada ogaado ayaa leeyahay waa la isla qaadaa dhigay gunta loogu sii dhaadhacay wasaaradda wali qaada ayaa jiray baa la yiri ayaa kamid ah wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda wasaaradda warfaafinta wasaaradda hawlaha guud wasaaradda tacliinta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga maxkamadaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha intaasoo wasaaradood oo lacag qabta si xaqana u qabta ya ayaa waxa la leeyahay xaq baad u qabataan laakiin shaqadiini ma lacagta dadku waxa ku shaqeeyaan halka dawladdu account-keedu yaalo ee ku shaqeeyaan looma baahna inta idinku qabataan
inaad accountkiina ku haysaan waxoogaa dabeetana soo gudbisaan waa waqti dheer bay qaadanaysaa shuruucdana way diidan tahay uma waafaqsana sidaa daraaddeed khadamadkood bixin adugu wixii lacaga accountka soo dhacaysa arrintaasi waan ka howlgallay intaan idiin sheegay intooda badan maalintaa shirkaan ka soo noqonay 13 had ilaa maanta in badan baa lala soo wareegay oo already maanta ku soo dhacaysa accountka dawladdu leedahay ee treasury single accountka la yiraahdo ayay ku soo dhacaysa waxa kale oo labaad oo la doonayaa cid alla cidii kale ama dawlad ha noqoto ama dadweyne ha noqoto ama shirkado ha noqoto dibad iyo meeshii doonaan ha joogaan sharcigu leeyahay waa inay cashuur bixiyaan waana bixiyaan sharcigu cid dawleeyahay cashuur ha bixiyaan sharcigu mid aan u sameeyay ma mid cid kale sameeyo sharciga nation kanu yaalay weeyaan sharciga nation kanu yaala waddanka kanu yaala sharcina fulin buu wax ku leeyahay cid alla cidii cashuur looga baahan yahay inay bixiyaan weeyaan cashuurta markay bixiyaan ayaguna waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan habka loo maamulayo cashuurta nafta noo keenaan ay u leeyihiin cashuur iyo u leeyihiin ballantu waxay tahay waxa weeye meesha lacagteena lagu maamulaa waa budgetka weeyaan ballantu waxa weeye budgetka marka la samaynayo inay dadweynuhu ka qayb galaan waxaan haysanno iyo wixii la ururiyey halkaa la isku keeno waxaan ugu talagalay ilaa adduunyada marba qof unbaa taliya marba guruub unbaa taliye dawladdaada iminka u dhiibateen Soomaaliya aad u dhiibateen xilka inay mas'uuliyadda qaaday wuxuu yahay mas'uuliyadda qaaday waxa weeye maalinta budgetka la wado ee la isku keenayo inaan isku nimaadno representatives ee Soomaaliya 13 milyan isku iman karaan isku yimaadaan oo dabeetana la isla qaadaa dhigo sidaan anagu u malaynayna in loo qabto hadhowna taladiina la qaato hadhowna baarlamaanka loo geenayo dadkoo dhan matala taasa anagana ballanteedu ahayd waana dhacday sanadkiina dhaafay qawaaniinta maanta shuruucda la geenayo baarlamaankana maalin dhaw shir jira waxaan qabanay shir muxuu la isku yimi oo dadka wada hadlayaan shuruucda soo socota now waxa kale oo la nooga baahan yahay sharikadaha iyo individualska ama dadka ashkhaasta ee haysta kontraagyo kale si ay kontraagyadaasi u jiidiyaan ama waxay haystaanba dawladda uga jiidiyaan waxa looga baahan doonaa intaan loo jiidiyay eegada si fiican iyo fahma waxa looga baahan doonaa ama central bank ha noqdo cid u jiidinaysa ama wasaarad kale ha noqoto cid u jiidinaysa ama xataa UN ka haday ka haystaan kontraagyo ay wax ku keenaan waxa looga baahan doonaa inay ka keenaan shahaadad cashuur bixiye inay yihiin wasaaradda maaliyadda shaqad dambo cid qabanaysa ma jirto haddii aana dalkan wax ku darin waxaad ku daraysaana waxa sharcigu ku saaray wax cid kale ku saaraysa ma sharcigaaga soo akhrisan haddana lacag samayn waxa bixin maysid haddii laakiin sharcigu ku yidhi cashuurta bixi oo bixin weydo de waxay noqonaysaa markaa wixii aad shaqada qabanaysa haddaan anagu ku jadiidinayna wax dawladdu inay ku jadiidin weydo ayay noqonaysaa international community-gana waanu sheegnay cid alla ciddii international community-ga wax u qabanaysa ama UN noqdo ama ciddii doonta noqoto waxa tax exempt-ku waa gooni weeye cashuur dhaafku waa gooni laakiin dad badan baa jiro UN kana u shaqeeya meelo kalena ka shaqeeya marka inaan labada kala saarno ayaa la nooga baahan yahay oo ay nooga baahan yihiin international community-gu sida adduunyada kaleba ay samayso taasina iyadana waxay ku jirtaa SMP3 ayay ku jirtaa iyaduna way soo socotaa waxa kale ku jira in dalkan macluumaadkiisa la helo yaa soo gala yaa ka baxa lacag ahaan maxaa soo gala maxaa ka baxa NGO yaa intaa yaacaya dad kala yaacaya lacagaa la soo geliya baa la leeyahay intaasoo bilyan baa Soomaaliya gala leeyahay where is it lacagtaas halkay marto mas'uuliyadda nasaarin waxa weeyaan anaga iyo cidda kale minister of finance oo kaliya maaha waxa loo baahan yahay minister of finance iyo minister of planning iyo central bank inay isku tagaan baa la yiri oo ay ogaadaan wixii lacag soo gashay dalka habkay ku soo gashay halka ay martay oo adduunku waa og yahay inaguna maalinta la yiraahdo maxaa wadankiina sanadka soo galay Philip Coin markiiba la ogaado taasina waxa ku jirtaa
waxaa ku jirtaa shuruudda iminkaan la soo seexanay IMF-ka ayay ku jirtaa waxaa kaloo ku jira qof aan account lahayn inaan lacag la siin qof aan account lahayn inaan lacag la siin lacag kaashoo warwareegta in la yareeyo ama la joojiyo ya proportion baa yaa lanoo sameeyey waana ku talagelaynaa inay taas dhacdo now waxyaalaha ugu badan ee maanta registrationkeeda loo baahan yahay waa ciidamada weeye wixii kale oo dhan intooda badan waa lagu soo guulaystay ciidamada iyo tiradooda inta ay yihiin iyo habka mushaarka loo siinayo ya waxa weeye arrin aad iyo aad waa arrinta godka madow ee weli inagu hadhay weeyaan barta madow ee weli inagu hadhay waa taa weeye taasna hawl weyn baa lagaga jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu hormood ka yihiin iyo madaxda ciidamada hormood ka yihiin wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda maaliyadda dad intaasoo dhan oo iskaashaday ya waxaa lagu tala jiraa ciidankeenna iyagana danba ugu jirta in la habeeyo la sugo nambarkooda la sugo oo dabeetana marka nambarkii la garto ayaa la garan karaa budgetka loo baahan yahay ya taana taladeedan ku jiraayo maanta waxay idinku bishaarinayaan maanta waa bisha 9 waxaan bixinaynaa haddaynaan shalayba bixin haddaynaan jimciye bixin maanta waxaan bixinaynaa 5,000 ee ugu horreeyey ee faraha laga qaado biometric ya oo account-kooda ku dhacaysa lacagta eol waxay lacagta waxa loo xawilayay wasaaradda loo xawilayay wasaaradda dabeetana dadka la doonaysa qaar account-yada qaadan kayn ma dhici doonto waxa weeye 5,000 ee ugu horreysay inta kalena waa ku xigaysaa qof walo ciidana iyo qof walo shaqaalaha iyo qof walo dawladda wax ka qaataan waa inay farihiisa meel yaalaan account-kiisa waa in lagu shubaa waxyaalo badan bay xalilaysaa taasi ya waxyaalo badan bay xalilaysaa waxaa kaloo aan idiin sheegayaa oo iyadana ku jirta SNP-da annagana noo suuro gashay ambasiyada iyo ambaasadarada dibadda safaaradaha inoo furan ayaguna waxay bar madow maran misabeen waalkii islaantii ee bar madow ahayd dhibaatada dalka burburkiisaana keentay inay bar madow noqoto waxa markaa aan idhi safaaradaha si wax loo siiyo dee dadkooda waa in la ogaadaa iyo intee joogto waa in la ogaadaa intee shaqaalaha waa in la ogaadaa intee aan shaqaalo ahayn oo ku meel gaadha waa in la ogaadaa waa kow talabaad lacagii ma soo gashaa safaaradaha waa in la ogaadaa lacagtayda soo gashay meeday waa in la yidhaahdaa ya ama ta baasaboorka idinka soo hadha ha noqoto ama tu service badan baad qaarkiin bixisaane lacagta weeraysid ha la yidhaahdo xisaabtu dhinacuun maaha ayaguna xisaabta inay soo celiyaan niyow lacag maydi soo gashaa ha la yidhaahdo ta saddexaad waa in la yidhaahdaa safaaradaha qaarow dalalkaad joogtaan baa waxda ka bixiya sow maaha sow idinkaa bixiyaan aqalka kiradiisa laydhka ma idinka bixiyaan biyaha ma idinka bixiyaan wax lacaga ma idin siiyaan in la isla xisaabtamay lay tahay tan ay sii taana waan qarinaya may socon ya taana ay sii tanna ma soconayso marka muddo ayaan markaa isla kadeednay ya talabaad in safaaradaha la kala saaro oo wasiirka aad baan ugu mahadnaqayaa my friend wasiirka foreign affairs-ka oo shaqo fara badan arrintaa ka soo qabtay muddo ayaan iska daba wareegaynay maanta waxaan idiin sheegayaa in maanta la bixinayo safaaradaha lacagihii aan ka haynay la bilaabaya maanta haddii ilaahay idhaahdo wax badan baa soo qabsoomay wax badan ayaa soo qabsoomay welise may soo wada dhammaystirin inay soo dhammaystiraan ayaan ka filaynaa waxaa kaloo doonayna safaaradu isku quwad maaha wax soo gala in laga xisaabtamo macnaheedu maaha waxbaa ku soo gala maaha waxa weeye in la isla xisaabtamo dee ya lahaa maa kasabat calayha maa iktasabat qof waliba mas-uuliyadina way saaran tahay ya xaqna uu leeyahay soo ma taasina iyadana waa taa iyadana midaan ku guulaysanay ayay tahay marka maanta ayaan iyagana sii daynaynaa haddii ilaahay idhaahdo waa kaas now waxaa jirta deynan laynagu leeyahay oo muddaan ka hadalay deymanka laynagu leeyahay muddaan ka hadalnay deymanka laynagu leeyahay muddaan ka hadalnay adduunyadu nagu leedahay gudahana qaar baa laynaga leeyahay kuwa dibadda laynaga leeyahay muddaan ka hadalnay waa ilaa 6 bilyan oo dhow weeye waxaa la leeyahay waddankeennaasoo kale sayskiisu sidaaya khayraadkiisu sidaaya wax badan maaha laakiin naga aad bay noogu badan tahay lacagaan iska bixin karna maaha haddaan iska bixin karaynana kolley iyo kolleyba qawaaniin baa jirto dalku markuu ka dhaco sideenaasoo kale waa laga daayaa laakiin waa inay waddo soo maraan lagaga daayo waxaan markaa ku jirnaa maanta aan isku dayaynaa lacagaha intaasoo bilyana
bal haddaynan isku dayno in xaqiijino waxay haayeen ma laynagu leeyahay horta lacagaan mise laynaguma laha marka dawladaha kol haddii inagu aan burburay oo waxa la wixii qoraay oo dhani aan duminay oo baabino irka u diray habaas noqdeen ya waan waraaq meel qoran oo taala jirin ila waxa leedahay waxaan iguma leeyahay iguma marka sharci aad haysato ma garanaysaa kontaraagiyo waxa haysan mugti waxaan haynaa ma jiro wixii laynagu leeyahay la yiri uma iska aqbalay si kale oo aan samayn karnaana ma jirto waxaan markaa doonaynaa qola waliba inay noo soo dirto sida ay noogu leeyihiin lacagto kol haddaan aduu sheegan karin dee qofka maba qasbi kartid hadduu kuu soo jawaabi waayana adduunku intaas kugu leeyihin baa lagu odhanaya marka waxaa naga fudeediyey arrinta kol haddii mar laynaga dhaafayo laakiin haddana inaan ogaano bal haddii sida laynoogu leeyahay markaa shalay waraaqaan u qoray dawladaha qaar aan leenahay lacagihii noo soo sheega kontraga daadaysaan keena waxaan doonayna inaan ku dacweyno hadday keeni waayeen inayna taana laguma le wixii haddaan buruuf jirin baan leenahay ya haddaan warqaday ilaa anagu waan baabano ma hayne laakiin adeerow waxaan seexnay dad keeni weydo waxaad leedahay maaha adduunkan ka dhaadhicina IMF-kana waanu sheegnay warqad baanu qoray Libya warqad baanu qoray Algeria warqad baanu qoray nimanka la yidhaha Iraaqiyiinta Sacuudi Arabia warqad baanu qoray banka Abu Dhabi ku yaala ee la yidhaha Arab Fund for Economic and Social Development isagana warqad baanu qoray Kuwait Fund kana warqad baanu qoray toddobadaasa warqad qoray shalay waxaan ka sugaynaa verification inay noo soo sheegaan bal hadda lacagaha ay nagu leeyihiin halka ay marayaan iyo waxay yihiin ya ayaan doonaynaa inay noo soo sheego dawladda hore dhawaan u qoray weli ku maqanina waa jiraan bal waxaasoo lacaga waxaan ku fallay ya kulle been laynaga dhaafo ayaan rabnaa now wasaaradda haddaan dib ugu soo noqdo waxaa jira meelo la nidhi xoojiya oo dee wasaarad walba loo baahan yahay xoojiyaan ayaa halkan wasaaradda yaalla waan ka shaqaynaynaa waxaa ka mid ah waxaan furaynaa xafiiska LMTO-ga la yidhaahdo wuxuu ka shaqaynayaa cashuur bixiyayaasha waaweyn buu gaar u noqonayaa ya cashuur bixiyayaasha waaweyn ayuu gaar u noqonayaa kuwaasuu la shaqaynayaa kuwaasuu ka shaqaynayaa kuwaasay isbaranayaan xafiis dhan weeyaan oo intaasoo shaqaalaa leh qofkii madaxda ahaana shi dhaweyd la qortay taasi waxay ku jirtaa conditionska loo baahan yahay adduunyada kale ayay ka jiraano dadku in cashuuruhu kale googooni noqdaan ayaa baahi weyn loo qabaa taasina iyadana dhammaad bay tahay conditionkaasi dhammaad buu yahay waxaa kaloo jira departmentkii muxuu hantida maguurtada ee dalkeena iyo waxa hantidii maguurtada ku miyan tahay asagana oo iska jiifay oo aan jiri beri hore hantidii dalkani lahaa ee dhul lahaa ee beera lahaa ee aqala dhisan lahaa ya ee dal iyo dibadba ku lahaa wasaaraddan ayaa departmentkaasi ahaa kaana isagana dib baan u dhisaynaa dib baan u habaynay madax baan u samaynay dib u habaynteedina way socotay iyaduna inay dhammaato ayaan ku tala jiraa insha allah marka dambe ayaan idinka warrami doonaa okay marka waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo markaa waxaan qabanay ee noo qabsoomay bisha intaasaan kasoo korxaadsaday waan kasoo korxaadsaday dee wasaaraddan oo shaqaynaysa oo waxyaalo badan qabanaysa wixii ugu waaweynaan islaa waa u baahantahin in ogaataan ayaan soo korxaadsaday ugu dambayntii waxaan leeyahay dad iyo Soomaali ciid wanaagsan aanan isku tashanno ya isku tashada macnaheedu wuxuu yahay waxa weeye wax ciyaara maahe ya bariyada adduunka aan bariyayna wax walba weydiisanayno aan joojino wax walba yaa noo gurmaday aan joojino dad baa Alla naga dhigay ya adduunyadan intaan halkan ka shaqayno aan tagaynay aqaladan ka wada dhisanay aan eegno waxay ku sugan yihiin sidaan inagu nahay dalalka agagaarkeenu yihiin ya أنا وحنا لها personally تنوع شخصيا ويان dadka halkan ka shaqeeya magaalo kalena aqalkoodi ka dhistayo ee weekend ka tagayo isla yaab xisho halkan ka dhisa aqalkaaga xisho isla yaab halkan Abu Dhabi laga soo shaqeysanayo ma yaade ya waa personal weeyaan tani salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh